asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan akhyaarta soo dhowaada waa mar kale iyo barnaamij kale iyo of course kista t v barnaamijkeena maanta waa barnaamij daba socda barnaamijyadii baryaha kan aan soo wadnay ee ku saabsanaa arrimaha soo galootiga iyo jinsiyadaha waxaan ku qaada dhigi doonaa insha allah laba qodob oo culculus oo ka soo baxay dowladda federaalka ah qodobka koowaad waxa uu ku saabsan yahay wax ka beddel lagu sameeyey qaabka loo buuxsado araajida lagu doonayo sharciyada sida green cardka I-94ka iyo citizenshipka sidaas la mid ah warqadda shaqada iyo asylumkana kama marra waxaa kaloon eegi doonaa insha allahu tacaala nin american citizen ah oo dhalasho ka haysta dalkan maraykanka oo ay dacwad ku soo oogtay dowladda federaalka ah ee dalkan maraykanka gaar ahaan qolyaha qaabilsan badqabka xuduudaha ee border patrolka maalinka waa jimce waa 14 bisha agost 2026 haddii aad nagu cusub tahay subscribe to the channel haddaa hore noola joogtay like and share the video waa idinka mahad celinaya ku bilaaba ee waxaa wax ka beddel lagu sameeyey qaabka loo buuxsado araajida lagu qaato I-94ka green cardka citizenshipka asylumka iyo warqadda shaqada laga bilaabo shalay waxaa bilaabatay in applicationada oo dhan laga dhigo online inaad ku soo buuxiso qof kasta oo raba in uu buuxsado green card I-94 citizenship waxaa laga rabaa in uu samaysto account uu kala socdo kayskiisa sidoo kale waa inaad u samaystaa account uu ka soo buuxiyo applicationka waxa ay rabaan in ay helaan qof kasto informationkiisa halka markii hore intii applicationka gacanta lagu buuxiyo loo diri jiray postada lagu diri jiray halkaasoo loo geen jiray post office box ama PO box lagu diri jiray applicationadaas ayaa waxaa ku yimi dib u dhac fara badan processingkoodana waqti badan ayuu qaatay bay yidhaahdeen marka waxay u baahan yihiin inay hadda wixii ka bilowdo ay u wareegaan amarna lagu siiyey hay-adda iyadu qaabilsan inay applicationada process garayso USCIS-ta waxaa amar lagu siiyey in ay wax kasto online ay ka dhigaan waxaa dhici karto in dadka barkiis aysan heli karin inay online ku soo buuxiyaan ama internetka ay ka soo buuxsadaan dadkaas ayaa waxaa la sheegay in ay buuxsan karaan ama apply garayn karaan waxa la yidhaahdo exemption oo ah in sharcigaas laga dulqaado ku saabsan in applicationka online ah ka buuxiso keliya dadka waayeelada oo kale oo todobaatameyada jira internet iyo waxaa si loo isticmaalo ma yaqaanaan dadka u buuxinaya kolley online way uga samayn karaan laakiin dadkaas oo kale waxaa loo samaynayaa baa la yidhi waiver waxa la yidhaahdo oo ah in laga qalleeyo inay onlineka ka soo buuxiyaan dadkaas marka case by case bay u qaadanayaan baa la yidhi in applicationka laga ogolaado inaad kusoo buuxiso warqad iyo in kale sidaas la mid ah haddaad rabto applicationka waad soo buuxsan kartaa waxaana ka dhigi kartaa PDF isagoo ah oo aad soo scan garaysay na way aqbalayaan haddii aad ugu dirto sidaas waxay sheegeen keliya in aan laga ogolaan doonin qof dambe in uu kusoo buuxiyo warqad intuu soo diro bashqad uu soo geliyo sawirro soo dhexgelgeliyo wax walbo lacagta soo raaciyo jeega inuu soo diro oo post office dambe oo loo soo diraayo ma jirto marka arrinkaa isaga ah wax badan ayuu beddelayaa waan foomamka ay taabanaysana waxaa ka koowa baa la yidhi foomka citizenshipka lagu buuxsado dhalashada ee N400 foomka I-765 oo lagu buuxsado employment authorizationka foomka green cardka loo buuxsado iyo foomamka kale oo asylumka iyo loo buuxsado marka arrimahaas ayaa ka soo kordhay xaggaas oo ku saabsan immigrationka iyo CIS-ta dhankeeda dhanka kale qof amerikaan ah oo dalkan dhalasho ka haysta oo baasaboor amerikaana leh ayaa waxa uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Atlanta Georgia xilli hore ayay dhacday dhacdadan laakiin dacwadda hadda ayay keeneen ninka odaga ah waxa ay u garteen qolyaha ka shaqeeya badqabka xuduudaha ee border patrolka in uu yahay nin active ah oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka soo galootiga ah oo activiste bay ku magacaabeen ninkaas odaga ah markii ay la hadleen oo baaritaan ay ku samaynayeen ayaa waxa ay ka codsadeen in telefoonkiisa uu u furo telefoonka number ka sheeg bay yidhaahdeen passcodekii markii ay ka codsadeen waxayna halkan ku caddaynaysaa qofka ama american ha ahaado ama ha wato I-94 ama ha wato green card ama ha wato passport iyo visa kalebe haddii border patrolka ay ku qabtaan oo aeroboortka aad ka soo degaysid oo lagu weydiiyo telefoonkaaga noo fur waa in aad u furtaa iyada oo qofka
markuu maraykanka magaalada iska maraayo booliiska iyo border patrolka iyo insta midna aysan ama xaq u lahayn inay ku tiraahdo telefoonkaaga noo fur oo ay noqonayso illegal search and seizures waxa loo yaqaano in si qalad ah lagu weydiiyey in baaritaan lagugu sameeyo gaar ahaan telefoonkaaga laakiin marka aeroboortka aad joogto oo kale waxaa tahay timir xabaal taallo ninka odaga ahaa wuxuu sameeyey wuxuu siiyey passcode qaldan number qaldan oo numberkiisa sirta ah oo qaldan buu siiyey numberkaasna horuu usii samaystay haddii numberka telefoonka la geliyo wax allaale waxa ku jiro dhan way ka masaxmayaan so telefoonkii numberkii qaldanaa wuu u dhiibay wayna masaxmeen telefoonkii oo dhan baa wuxuu kusoo baxay wax eber ah nimanka odayaasha ahaa ninkaas dacwad ayay ku soo oogeen waxaana uu wajahayaa ilaa 5 sano oo xarig ah in la xiro ayuu wajahayaa sababtoo ah waxay yidhaahdeen waxa uu caqabad ku noqday baaritaan la rabay in lagu sameeyo oo si legal ah oo sharci ah loogu sameeyo dowladda federaalka ah marka sharci bay u cuskadeen US 18 code la yidhaahdo oo dee maxkamadaha u qoran marka arrinkaas isaga ah ayay kusoo oogeen arrinkana marka waxaan ka baran doonaa hadduu ilaahay idmo haddaad dhalasho haysato oo aad basaboor leedahay iyo haddaadan lahaynba haddii ay aeroboortka aad ka soo degaysid oo ay ku qabtaan lagu waraysto ama la rabo in lagu weydiiyo telefoonkaaga passcodeka noo fur waa inaad u furtaa haddaad u furi weyso waxaad adigana sidoo oo kale wajahaysaa in xarig noocan oo kale iyo dacwad noocan oo kale ay kugu timaado marka arrinkaas ayaa isagana ninkaas odayga ah ku dhacay wuxuuna kasoo laabanayay waddanka Dominican Republic magaas wuxuu hadda face garaynaya oo wajahaya 5 sano oo xarig ah oo arki doonaa insha allahu tacaala maxkamadaas dowladda federaalka ah iyo isaga ayaa dacwad isku haya waxa ka soo baxa waa la ogaan doonaa hadduu ilaahay idmo marka labadaas qodob ayaan rabay inaan idinka dabageeyo halkaas ayaan insha allahu tacaala kusoo koobaya warkaygii haddii aad nagu cusub tahay subscribe hadda hornoor joogta like and share sidoo kale facebookeenna followda dhex ku sii insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu